بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. الله سبحانه وتعالى أصغر رسولنا صلى الله عليه وسلم حسوسنا يا reer bari Israa'iil iyo kitaabka u soo degay iyo agoonta sida looga hadlay in maarata bariga iyo samafalka loo sameeyo وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل reer bani Israa'iil isagoo maartay rasuulka sallallahu alayhi wasallam lagu leeyahay xusn nicmadaas markaan reer bani Israa'iil miithaaq iyo balan adag aan ku qabanay in ilaahay kaliya caabudaan ay maartay waalidka ay u samafalaan iyo aqaaribta waxa lagu sadeexayna waa agoonta quraanka kariimkana aad ayuu uga hadlay واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى قفك السدحات وقضبك السدحات سوق لا وأيتامته أما أقومنك مركا رسولك صلى الله عليه وسلم نوحو ماركتي كل شيء إن ماركتي لبذا فرات وكتل مامي سبابذا يوصدها إن الجنة كل نقنا يعني أسقى قفك كفالق هذا أقوم مركا رسولك صلى الله عليه وسلم وعاد وأماني إن أقوم تلا تاجره ولا تاكله ولا كفالق هذا وأرين عاد مهم هو رسولك صلى الله عليه وسلم إن الصحابة كمذا أيام مال يماذي وحكي لي رسولك إلهي وحن دريما قسوة القلب قلبك يا أذك رقة القلب أيام لو جبها يقفك مؤمن كأ من قلبك يسوء جلع سناده مركزه يحور ما جعش هاي قلبك يقول إنه جلع سناده حاجة هذا إلهي سبحانه وتعالى وجوده ودنها قاعد جارته هذا جعش هاي إن قلبك يقول جلع سناده أقول مدح وصلاح مدح وصلاح ونا جرجار قلبك يا جرع سنانا يا ضناها كنا وتجاري ساح وأيستد الله سبحانه وتعالى يا أوفنا يكلنا رسولك صلى الله عليه وسلم حديث لو حكوش شيء قفك أقول مدح وصلاح تنتي سأنت قعنتو أي جارتو ومسحو جارسيو وأجر إنه هلاي وحنا هذا صدق وينها هي أدن المستقيم فاونديشن أو يدو يستاك تارنتان هي ذها صوبالدها ومحلها ويكويريهين هي أدو يستاكتين يا أقول كفالة قادو. بسم الله الرحمن الرحيم مسؤولك معلمين تا هي أدى شرفت له ضدك مسلمين تقولوا كلية وحان إلهي ورجينا دم بجودي نضاف هي دم بجوالد كود أو أنت اللي ساعدي وحلا بري لوجود ذالي وحان رجينا إني أقول قولي ستنقذار وحأي برتين لوجود ذالي بالك استلال صوبر معلم معمولة مسؤول dhaqaale hay-adda sharafta leh dadka mas'uuliyiinta ilaahay dambigooda ka dhaafo annagana waxaana waalidiintii waana ku mahadsantihiin abaalan idin haynaa waa mahadsan yihiin macallimiinta iyo hay-adda sharafta badan oo u soo adeegtay agoonta iyo dadka danyarta intaba annaguna waxaan nahay waalidiintii وأنا أمهد علينا بقول كيف بقول مركا هاي مسكينة وأنا هاي هذا الكبدر ما يقانيه وأنا من سلام يا رالين على يجنقض وحاد كل سلام يا سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا يا وفرح سنة هاي أنا كسوق قيب قلا سدح بقول أوقف لجودون سينا يو لعجو عيد يكون عيدان حنبليا إذن الله هذا إذكوا حنبليانا والدين تيا أرضين ماشى يجوا وحكى لهم ما حد علينا يا ضدك التبرع يا شقة أو صار يبتي العكتة الآن يا أقول ما حد علينا يا وحار الله يا جزاكم الله خيرا waxaan kaloo rabaa inaan dardaaran yarsiiyo ardayda iskoolkan almustaqiim foundation ardayda waxaa idin leeyahay waxaa hesheen waqti fiican ayaad hesheen jaanis fiican ayaa ilaahay idin siiyey waxaa la idinka rabaa inaad ka faa'iidaysataan waxaa jira dad badan oo danyar ah oonan aan helin jaaniskan idinka aa haysataan waxaa jira arday agoon ah oonan helin fursadan idinka aa haysataan waxaa jira arday agoon ah oo jecel inay wax bartaan haddana uusan fursad aysan u saamixin inay wax bartaan marka ka faa'iidaysta fursad qaali ah ayaa hesheen ilaahay ha idin la garab galo waxaa la idinka rabaa inaad ka faa'iidaysataan fursadan qaaliga ah oo aadan marnaba aadan iska dhuminaha
waxaa kale oo aan dardaaran siinayaa waalidiinta ilmaha hay-adan almustaqiim. waalidiinta khayr allah idin siiyo, ilmaha waa ku dadaasheen qaabka aa u soo labisteen iyo sida aa wanaagsan aa u soo dirtaan ee aad ula jeceshihiin waxbarashada. waxaa la idinka rabaa intaas inaad sii kunjibaartaan si ilmaha ay hadhow u noqdaan ilma aa ku nasataan. waxaa mahad iskale ilaahayga idin garansiiyey inaa iskoolkan aa ka faa'iidaysataan oo ilmaha aa keensataan. marka waalidiinta sharafta leh aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin, waana u mahad celinayaa. waxaa kale oo aan mahad ballaaran u soo jeedinayaa maamulka iyo hay-adda almustaqiim, macallimiinta, maxaan ku dhahay shaqaalaha, kaamirmaanada mar walba daba taagan oo raba inay heer fiican ay ka gaaraan iskuulkan ardaydan. aad ayaan ugu mahad celinayaa dhabar adayga aa muujiseen. runtii waxaa waaye shaqo fiican waayo aakhiriya adduunyada aa ku gaaraysaan. marka aad ayaa u mahadsantihiin macallimiinta, maamulaha iyo hay-adda dhammaantiin. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaan salaamayaa dhammaan caruurta iyo waalidiinta ka soo qayb gashay xafladan almustaqiin iskoolka agoonta iyo danyarta. ilaahay mahad u sugnaatay alxamdulillaah. maalmo ka hor ismaanaan lahayn xamarna deganaashaad kusii joogaysaan, laakiin maanta ilaahay u mahad u sugnaato inaan xaflad ka soo qayb galno ayaaba ilaahayna gaadhsiiyey alxamdulillaah. waayo hayb dhar iidiyo meel la yskugu yimaadayo may jirin 2 isbuuc ka hor. ilaahay mahad u sugnaatay. waxaase kale ilaahay awooddiisay ku ahaatee mahad celin iska leh dhallinyarada soo agaasintay ee isku dayday inay agoon intan gaadhay wax u qabtaan. awood ilaahay baa iska leh. way jiraan dad ilaahay maal siiyey oo aqli siiyey oo aan awoodin haddana intaas in leeg inay wax u qabtaan ama ay meel iskugu keenaan. cabbaas xaaji iimaan khayr allaha siiyo iyo intii ku raacday ee ku ajiibtay ee la garab qabatay, iyo cabdirashiid miya cabdiqaadir haddii aan gafaynaha iga raalli ahaado agaasimaha halkan jooga. waa markii labaadeen anigu ka soo qayb galo. aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. hablaha ilaahay idinkana khayr ha idin siiyo, ka faa'iidaysta. waxaa tiintiinka soo koraya berri lagu faani doono. annagu waqtigayagu waan soo qaadanay. marka dadkana bedelayaa tihiin. ilaahay ha idinla garab galo, baari allah idinka dhigo, kuwii wax isku tare waalidkooda wuxu tara ee qofkii jilicsanee ay arkaanna u naxariista allah idinka dhigo. wiilashana sidoo kale idinkuna wiilashaydii baa tihiin. waxaan isleeyahay habluhu ay xanaaqin waa dumare. marka idinkana ilaahay ha idinla garab galo, ku dadaala. waayo maanta haddaad tihiin agoon ilaahay aabbaha iyo aabayaashiin ha u naxariisto. hortiina agoon way soo jirtay, waana sidii wadaadka sheekhu inoo sheegay. hadda ilaahay baa idinka fursaddiisa siyaad wax uga faa'iidaysataan. kuwa idinka idinla mida ayaan haysanin oon helin, ha isdayicina. moraalkaa ka xumaynina waalidkiina iyo macallimiintiina iyo inta noloshiina iyo mustaqbalkiina berri ka naxaysa. dadka maanta jooga waa wada age. dadka soo baxaya la raba inay diinta iyo dadka iyo dalka wax u taraan waa idinka. madaxweyne kastood aragtaan wuxuu ka soo baxaa ama qoys danyara ama qoys aan tacliin fiican lahayn ayaa qof fiican ka soo baxa oo ilaahay doortay. marka dadaala, allah idinla garab galo. maamulka sharafta leh ee halkan annagana nagu casuumay khayr badan allaha siiyo. intii karatay ee halkan iyaguna ilaahay iskugu keenayna tawfiiqda allaha waafajiyo. wabilaahi tawfiiq. waxaan mahad ballaaran iskale alle subxaanahu wa tacaala ee noo suurtageliyey maanta inaan 300 arday oo agoon iyo danyar isugu jiraan aan siino lacagta ciidsiinta ah. dhammaan almustaqiin waa u mahad celinayaa hawsha adag ee haya. dhammaan ummadda muslimiinta waxaan u soo jeedinaa ama ku baraarujinayaa inay ardayda walaalahooda ah agoonta ah danyarta ah dhammaan Soomaali meel walba ay joogto inay u gurmadaan, isgarab qabtaan. intaas ayaan leeyahay. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. dhammaan martida qiimeeyada kala duwan, waalidiinta, macallimiinta, ardada, waxaan ku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. سلا كدب مركه هوري إلهي سبحانه وتعالى ما تسكله مركه ما أنت وجودة أسوي ما إنه واحد يتسنتو ولا جاري محاربة مركه إن شاء الله تعالى إن هل كان كده واجيو إن سنة كان عروض عروض أيار كيسان وأنت هم ونمان أرض عروض يكون ضيع تسكول كلية لاي يتسنتو ذي نودش صارتي مركه وحنا بتلاقي إنه واسد حب قلوا عروض أونا هل كان فده يضيع الأسبوع جرتو لما كان الريبين ونمان جودان أرض ولي إن شاء الله تعالى وحنا هل كان خصيص دونا lacag $20 oo aan u qaybin doono insha Allah taala marka xafladeena ay gabagabada inuu dhowdahay
المستقيم فاونديشن waxay mas'uuliyad iska saareen in ay caawiyaan caruurta agoonta ah oo ay dabaraan waxbarashadooda, buugaagtooda, qalimaantooda iyo dharka iskuulka ay ku dhigan lahaayeen. Iyaga oo kaashanaya dadka Soomaaliyeed, waxaad sanadkii bixin kartaa $360 ama 6 bilood $180 ama xitaa 3 bilood $90 oo kaliya si aad u caawiso wiil ama gabar yar oo agoon ah oo aan haysan waxbarasho iyo garab. adigoo helaya xiriirka qofkaad waxbarashadiisii damaanad qaaday. Waxa kaliya adduun iyo aakhira ku anfacaya waa sadaqo, weliba agoonta waa laga dardaarmay. Shaah iyo shaxaad shilimaad aad ku bixiso ha ku badbaadi waynin qof dhan mustaqbalkiisa.